رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كسو دواذا الشيخ ريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kasto aad jirtaan, yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin, rag iyo dumar. eebaweyne waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunyo meelsan leh, aakhiro janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena. aamiin aamiin aamiin. waxaa laga yaabaa saaka inaad isweydiinaysid sheekh Rimi muxuu la dhoola cadaynayaa. waxaan la dhoola cadaynayo weligay anoo idin salaamay dhoola cadayn ku soo galay ma aragteen? maya. laakiin maanta ma aqaan dhoola cadayntan maanta waxa keenay waa idin sheegi doonaa insha Allah biidhnillaahi alkariim. adinkana waxaan jeclahay inaad ila dhoola cadayn doontaan. waayahay. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. maanta waxaan idin soo jeedinayaa wiil Soomaaliyeed ayaa commentiga riyo igu soo weydiiyey, isla markaasna Carabi ayay ku qorneed. riyadiisii ayaan rabaa inaan magaranaysaa idinka jawaabo hadduu alla yiraahdo. qaabkay u qorneed ayaan magaranaysaa aan idin soo gudbinayaa, waan idinku dul akhrinayaa, kabacdi waxaan idin soo gudbinayaa fasiraadeeda biidhnillaahi alkariim. waxaan la dhoola cadeeyena gadaal ayaan marsan doonaa. marka hore riyadan ayaan idin soo gudbinayaa insha Allah. riyada waxay ahayd qaabkan ayay u qorneed. waxa uu dhahay: فضيلة الشيخ ريمي، أنا رأيت في الرؤيا وأنا أقرأ آيات من سور الأنبياء، وصلوا أقرأ من أول آية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وأخرى آيات كلا أيو شيغايا من قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى آخر. انت كلا ودعو وحودها شيخ ريميو إلهي مقرنا سايدان كستو هكا عزيو. ريا كلا يان أركو دهي ومركا لإسلا قرآن كي ليه وحان كا عدسانا ياهو دهي إنات ريداس إيسو فسرتو. ريدي سايان فسرينا مركو هوري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore ku bishaarayso qofka suuratul anbiya kaamil isagoo akhrinaaya ku riyooda ama lagu dul akhrinayo, qofkaasi aad iyo aad buu u nimcaystay. waa shida badan kabacdi faraj ilaahi uu u furi doono. allahu akbar. xanuun badan kabacdi caafimaad ilaahi ugu bedeli doono. yacni waswaas badan kabacdi oo salaad uu ku waswaasayo khushuuc ilaahay ugu bedeli doono. faqiirnimo zaa'id ah ilaahay ghaninimo ugu bedeli doono. wax kasta oo hadda uu ku sugnaa Allah subxaanahu wa tacaala ayuu ugu bedelayaa cagsigeeda ama wixii ka soo horjeeday insha Allah biidhnillaahi alkariim. oo ah wax kastoo xumo ah, wax kastoo wanaag ayaa ilaahay ugu bedelaya. suuratul anbiya been idiima sheegay. anigaan ah waxaan aad u jeclaystay suurad aan ku riyoodo inaan jeclaystay suuratul anbiya weeyaan. maxaa yeelay faraj weyn ayaa Allah subxaanahu wa tacaala uu ku furayaa. marka wiilkan aayad ayuu ka akhrinayay. aayadaasi laba qaab ayay noqonaysaa. haddii isaga
qof diin soo bartay uu ahaa balse haddeertaan dhanka dhalinyaranimada u janjeero oo dhinacaas u jeedo digniin loo soo diray waaye adiga oo yacni khaflad ku jiro hageeriyoonin ayaa la leeyahay oo ka kac ayaa la leeyahay macnuhu waa macnahaas waa haddii markaas isaga oo qof wanaagsan u soo hormaray ama uu ahaa haddeertaan dib rabo inuu ka xumaado haddii ma garanaysaa qof wanaagsan uu yahayna dadka asaga uu la nool yahay ayaa ma garanaysaa loo sheegayaa in uu dadka dacwada uu gaarsiiyo haddaan isqabadsiino labada aayad uu ku riyooday waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacmila saalixan tan leeyahay waaye labada aayadbo dad asaga asxaab uu leeyahay ama iskuul hala dhigtaana amaba hala shaqeeyaano amaba jiiraan ama jaar hala ahaadaane dad ayaa jiro oo wax xunxun ku sugan oo la rabo in ma garanaysaa uu uga digo loo baahan yahay waaye waa loo sii sheegaya dadkaasi wax u sheeg ayaa la leeyahay haddaba waa labadaas saddexdaas qaab ayaan ku fasiray suuradda kaamil ah lacalla waxaa laga yaabaa qof suuradda kaamila inuu ku riyooday ayaa dhici karto macnaheedu waa macnahaas aayaddaana qofka haddii qof hore u wanaagsanaa uu ahaa ma garanaysaa kabacdii xoogoo dhalinyaranimo soo galgalayso digniin asal loo digaayo waaye haddii kale ma ahoo labada aayadood ayaan isqabadsiinay oo dadka inuu dacwada uu ka guto ayaa la farayaa riyadiisa horta intaas ayaan ma garanaysaa aan uga gudbay haddaba waxaan soo gaarnay waxaan la dhoola caddeeyey sida aadba meeshan aad ka arkaysaan walaalayaal waxaan bilownay madarasadii ilmihii agoonta ahaa ayaan bilownay in sha allah biidni illaahi alkariim waad u jeedaan in ma garanaysaa dhismaheedii ay bilaabatay in ma garanaysaa ii sheeg adiga jiingadaheedii la hagaajinay dhul maasha allah waasica ayaan helnay oo ma garanaysaa ilmihii agoontan ay u dhow yihiin in ma garanaysaa dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan haddaba u imow waxaan la dhoola caddeeyey intaas ma aha waxaa laga yaabaa wadaadkii intaan miyaa la dhoola caddeeyaa maya waxaa la dhoola caddeeyey waa arrin farxad ah waxaan jeclaystay saaka salaada subax ka bacdi inaan ummaddii wax soo baxsatay faatixa muraad in loo akhriyo khaasatan gobolkan hadda aniga aan joogo waxaa laga isticmaalaa qofka markuu muraad weyn uu leeyahay afarta ayaa loo maraa afar faatixo ayaa loo maraa inkastoo ma garanaysaa dadkaasi ee qur'aanka aad ay u aaminsan yihiin waxyaabaha ay u akhristaana badanaaba ay helaan waan istaagay waxaan dhahay walaalayaal maanta waxaa laydinkaga baahan yahay dad Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa wax yar iyo wax weynba waxay u soo baxsadeen ilmo agoon ah dugsi qur'aan inay u dhisaan oo habla iyo wiilalba isugu jiraan haddana kafaaladooda iyaga ay sugayso waxaan idinka codsanayaa qof walba muraad ayuu leeyahay waa sidaan dhahay dad kortoodan taaganahay macnaha qof walba muraad ayuu leeyahay qof walba niyadiisa waxbaa ku jira qof walba meel ayuu ka ooman yahay qof walba meeshuu ka oomana inuu ilaahay uu ka waraabiyo qof walba niyadiisa waxay ku jirtay inuu ilaahay uu ugu sahlo qof walba wuxuu u la baxay bedelkooda iyo wax ka sii khayr badan inuu ilaahay uu siiyo faatixada ila mara ayaan dhahay faatixadii ayay ila mareen waxaan ka codsaday inay labeeyaan way labeeyeen waxaan ka codsaday in ay saddexeeyaan way saddexeeyeen waxaan ka codsaday inay afareeyaan markay afareeyeen la dhammeeyey wadaad reer baadiye ah oo markaad adiga aragto yacni jaleefsanoo qalalanoo ma garanaysaaye qofka aad la yaabaysid markaad aad aragto ayaa yacni jilbaa qabatay jilbo dadka qaar jilbo jiimka way hoos dhigaan
dadka qaarna way kordhigaan jalbo waa la dhahaa jilbo waa la dhahaa burhaan ayaa qabatay alaa xal wuu ooyay hal mar ayuu afka oohin iska jaray dadkii oo dhan waa naxeen aniga ayaa ka mid ahaa dadka hortooda ayaan taagnaa waa naxay markii aan naxay ninkii madax ayuu foorarsaday yacni wuu foorarsaday hoos ayuu foorarsaday madax ayuu hoos u foorariyey ilintii ayaa ka qubanayso markaasaa shib aa laga wada dhahay ileen in burhaani ay qaaday waa la dareensan yahay markaasuu wuxuu dhahay dadka masaajidka ku jiro waxaan markhaati gelinayaa dadka masaajidkan ku jiro waxaan markhaati gelinayaa wax qalbiga aan ku hayn jiray ayaa la iiga hormaray buu yidhi maanta wadaadkan waxaan u dhiibay boos oo ma garanaysaay aniga aan lahaa ayaan maanta dar ilaahay aan u baxsanayaa masaajid iyo madaraso ayaan lagu dhisayaa dhulku waa bannaan yahay meesha dad masaakiin ayaa degan qaxooti ayaa degan oo ma garan masaajid uma dhowa qof kasta ii sheeg adiga markii gurigiisa oo adinka uu maqlo gurigiisa ayuu isku baakimaa gurigiisa ayuu ku tukadaa niyadda ayaan mar hore gashtay in masaajidkan ma garanaysaa in meeshan masaajid aan ka dhisi doono sadaqa jaariya aan u niyeysan doono intaanan dhimanin ayaan go'aansaday laakiinse maanta salaada subax masaajidkan ayaa ilaahay isoo waafajiyey xalay ayaan xaafado jiiraankan aan seexday maanta waan imid markaan barnaamijkan aan maqlena go'aan waxaan ku gaaray wadaadkan inaan ku wareejiyo dhulkii ama booskii ayaa la igu soo wareejiyey in masaajid iyo madaraso aan ka dhiso walaalayaal wax lagu dhoola cadday ma aha miya asxaabteyda sheekh Rimi Channel markii hore masaajido ayaan dayactiri jirnay derbi aan lahayn derbi u soo sameyn jirnay soo da'ayo ayaan hagaajin jirnay dhul oo maanta ugu baahi badan masaajid iyo madaraso oo waqaf ah ayaa la helay horta Allahu akbar waqaf marka la yiraahdo wax caadi ama waa wax ninkii bixiyay dad aan ku qabsan karin anigii dhisay dad aan ku qabsan karin adinkii dhisay dad ayna ku qabsan karin waaye ilaahay ayaa loo waqfayaa waqfun lillaahi waaye dhulkaas ayaan idin hayaa madarasadaasi markay dhammaato tan hadda agoonta aan wadno markay dhammaato insha Allah waan soo gelin doonaa marka waxaan ku qoslayay waxay tahay mataqaanaa dad badan ayaa maqli doono barnaamijkan haddii aad niyeysaneedeen in waalidkiina amaba nafsadiina xitaa masaajid aad u taagtaan aad u dhistaan dhul waqaf ee aad la eedeen dhulkii waqafa waa la idin hayaa insha Allah waan idin soo sawir doonaa waan idin soo gudbin doonaa haddii dadkaas la waayo wax masaajid dhisaayo dhahayo hooyadayaan ula baxnay aabahayaan ula baxnay ama ma garanayso hooyo aabaan ula baxnay aan jirin sidii awalba aan ku dhisi jirnay oo ah wadaago walaalo isjecel qaacidadaas ayaa anaga haddaan sheekh Rimi Channel aan nahay qaacidadaas ayaa noo qaacida ah maxay tahay qaacidada wadaago walaalo isjecel noqda waxaan ku walaalownay oon ku wadaagnay channelkan oo khayraadka badan aan ku soo gudbinayna insha Allah biidnillaahi alkariim waxaa la yiri far kali ah fool ma dhaqdee faar bay bixisaa aniga weligaygaba waan idin soo gudbin jiray far leen ahay mooho laakiin gacmihii adinka waaye qofka foolka wejiga gacanta lagu dhaqaa maahino gacmihii idinka waaye insha Allah biidnillaahi alkariim jawaab fiican ayaan idinka sugayaa hadda ma aha markaan soo geliyo haddeertaan madrasadii kale ayaan magaranaysaa qorsheeda aan ku jirnaa aan bilownay aan dhisnay saa hadda horub u soo aragteen oo fiidiyowga aan idinka soo duubay ayadoo bilow ah laakiin waxaan ka hadlayaa insha Allah idinka ayuu idin nusan yahay dhulkaasi waqaf idinka ayuu idin yahay haddii hal shakhsi la waayo laba shakhsi saddex shakhsi la waayo oo ii sheeg adiga wax dhisan rabo oo waqaf baxsan rabo haddii la waayo
ummadda ku xiran Sheekh Rimi yar iyo weyn rag iyo dumar dal iyo dibad meel kasto ay joogaan wax weyn iyo wax yarba la bixi doono soo diyaar uma yihiin haddii barnaamijkan okay uu yahay commentigaaga ha laga arko insha Allah bidinlahi alkariim inaad ka qayb qaadan doontid balan ayaad naga qaadaysaa hadduu alla yiraahdo yaraan iyo badnaan wixii kaga qayb qaadan kartid insha Allah bidinlahi alkariim mar dhow waxaan idin soo sawir doonaa sawirkiisa insha Allah bidinlahi alkariim intaas ayaan soo gabagabaynayaa waxaan idin leeyahay Sheekh Rimi oo dhoola cadaynayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته